halkani waa museumka historiga aan ka duubayo caawa maanta sare waxaa halkaa ku qoran United Chamber 2013 book exhibition tickets online iyo website-kooda laakiin gelistu waa bilaash sida meelo badan ku qoreen sida xagga ku taalo admission free marka qof kasta waa imaan karaa soomaalida meelaha ka nacnacle way iska imaan karaan way daawan karaan waxa meeshan ku jira haddana gudaha ayay galayna waqti kadib nala socod wanaagsan kana boorkan wuxuu leeyahay security notice security may ask to search your bags when you enter the museum. No sharp objects including knives are allowed and will be confiscated. haddana gelis wanaagsan albaabkiina waa kan sala socotaan museumka ayaan sii galayna haddana halkaas museumka kaarkiisa wax laga cuno Vision of Earth's beginning, Earth's ages, thousands of millions of years ago. Central to understanding the age of the process, we know that our planet almost in our history, all by the population and people have arrived by late on the 10th. Dunida maanta iyo berito taasina waxa weeyaan dukaankii dunida aan deelkaaf halkana waxaa ku qoran British Geological Survey tanina waa guumays ama sida loo yaqaano afka ayay kala haysa ama caw ina caw bismillah jimada magaceeda naqaana saxaabay daawus tahay tala kale inay daawus tahay maanaya tala kale inay daawus tahay may daawus maaha taasina waa bagalay saa taqaaniin tan magaceeda ma aqaana ka fadhida baashan arkaysa waa dinosaur ama rhinoceros baalihii beligii hore jiri jiray dalkan ayada akrina waxaa ku qoran halkan extending mammal Mediterranean Mediterranean the gain of around South and South grassland of South America until about 10,000 years ago. It first grazes its skeleton is often mistaken for the dinosaur, but the gained brown sloth was actually a mammal and extinct relative of the living Swedish sloth. Its scientific name, Megaretherium, just means big animal. meeshan aan sii galayna waxaa la yidhaahdaa
college saa u socotid tanana waa dunidii oo wareegaysa ama earth oo wareegaysa halka hoose waxaa ku qoran a few kilometers beneath of our feet the earth is white hot a few kilometers above our heads the air is thin and cold okay in between is the biosphere, a narrow band like a skin of an apple, where all the devices from all lives flourish. waxaan arkaysaan webiyaal iyo dunidii oo yaacaysa waxay ka soo baxayaan qofka halkaas taagan waa isla aniga oo kamarada duubaya wala kusii dhawaada isma arko waykaas aniga oo kamarada duubaya xaggaa jira iskama arko xaggaan eego iskama arko sidaa daraaddeed daryeelkaaska daadaawada iyo duwaakaas alaabaha aan soo duubay maanta aniga oo London dalxiis ku tegay halkan waxaa ku qoran the sun is a massive nuclear reactor generating more energy than 200 million of the biggest reactor in the earth. This energy is radiated into the space. Bahalkan lama aqaano laakiin waa iska eegaynaa waxaasina waxyaalaha meesha yaala kaasna waa shabeel nool qaybtan waxaa kusoo ratimayaa dinosaurta ugu weyn meesha oo ah baasha xaggaas dharkeedu ilaa iyo sayrkeedu xaggaas iskasoo gacan tahay ayaan qaybta kusoo gabagabeynayaa inta aynu qayb dambe ku kulmi doono iyo saacad kadib waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo iyo studio darwish lana btv